bismillahi assalaamu calaykum waalid. waxaan maanta ka hadlayno waa dhaqamada caruurtaada. jiilka la yidhaha Gen Z waa gabadha aad dhashay gaariga kugu wada isbitaalka ku geynaysa, waa gabdhaha jaamacadaha dhigta, waa wiilasha kolleejka aada, waa bulshadeenna majoritigeeda ama aqlabiyadeeda. Gen Z maxaa ka taqaanaa waalid? waxaan saa u leeyahay, haddii dhaqankooda aadan garanayn, sifaadkooda aadan garanayn, waxa soo jiita aadan garanayn, waxay ka xanaaqaan aadan garanayn, qaabka loola hadlo aadan garanayn, dabeecadaha ay la dhasheen iyo adduunka ay la dhasheen aadan waxba ka garanayn, waxba uma sheegi kartid, ma toosin kartid, ma tilmaami kartid. sidaa darteed waalid, janaalka Waalid Legacy maanta wuxuu rabaa inuu ku baro dhaqamada qayb caruurtaada ka mid ah. waalid walba oo kelmadan daawanaya, caruurta uu dhalay 2 jiil mid bay noqonayaan. ama waa Gen Z, waa kuwa dhashay 95 ama 97 ilaa 2011 ka soo gaara, ama waa Alpha Generation oo ka hadli doono oo ah kuwii dhashay 2012kii wixii ka dambeeyey. labadaa jiil waa aqlabiyadda bulshadeenna, waa kuwa masaajidda aan u dhisnay, waa kuwa dugsi qur-aanka yimaada, waa kuwa aan rabnay insha allahu inaan badbaadino, waa kuwa aan janaalkan u samaynay. sidaa darteed waalid, janaalkan Waalid Legacy wuxuu rabaa inuu ku baro caruurtan aad korinayso ee qurbaha ku korinayso dhaqamadooda. waxaan hore u soo sheegnay jiilasha in la kala qaybiyo. waxaan idhi 1920kii ilaa 1927 jiilka dhashay waxaa la yidhaahdaa the greatest generation. 1927 ilaa 68 soo gaar, jiilkaasna waxaa la yidhaahdaa the traditionalist ama the silent generation. wax yar baa ka nool. jiilkii marka 68 ilaa 70kii waxaa soo gaadhaa dhowr iyo 70kii, iyagana waxay yidhaahdaan baby boomers. jiilkii ku xigay waxay dhahaan Gen X. jiilka bilowgii 80meyihii dhashay waxay yidhaahdaan millennials oon ka hadli doono. jiilka haddaan ka hadlayno waa midka 95 ama 97 iyo meelaha dhashay ee la yidhaha Gen Z. jiilkan kale ee dhashay 2012kii wixii ka dambeyn waxaa la yidhaha Alpha Generation. waxaan u jeednaa waalid, jiilasha saasaa loo qaybiyaa. jiil walba waxaa xukuma duruufihii ay la dhasheen, markay noolayeen wixii dhacay. cudurro waxaa jiray dhacay oo saameyn ku yeeshay, sida Alpha Generation ama Gen Z-guba uu u saameeyey COVID-19ku markuu dhacay ee la yidhi guryaha laisku soo xiro ee depressionku kor u kacay. anu nimaana marka Gen Z dhaqamadooda markaan ka hadlayno, waxaa la yidhaahdaa waa the first post-religious generation. waa jiilkii u horreeyey ee ka durkaya diinta iyo goobaha lagu cibaadaysto. maxaa keenay? waxaa keenay waxay la dhasheen oy la koreen internetka. sidaa darteed internetku wuxuu dhexda ka jebiyey awooddii ay culimmadu lahayd ama cilmigii loo soo raadsan jiray culimmada. culimmaduna xaggey joogaan? masaajidjay joogaan. waa jiil marka u doonta culumta diinta, internetka u doonta, Google u doonta, Wikipedia u doonta. sidaa darteed, maadaama aanay ku ta'athuraynin akhlaaqdii iyo dabeecadihii culummada, baa waxaa la yidhaahdaa waa jiilkii u horreeyey ee ka durkaya waxa weeyaan goobaha lagu cibaadaysto. waxaa qayb ka mid oo keena waxyaabahan pop culture-ka la yidhaah ee iyaga saameynaya. taasi waa qodob. qodobka ku xiga waxaa la yidhaahdaa waa the most sensitive generation. waa jiilka ugu caadifada badan. sidaa darteed waxaad arkaysaa wax dulmi ay u arkaan uma adkaysan karaan, way ka hadli, banaanbaxyay u soo bixi. haddaad eegto dhaqdhaqaaqa lagu taageerayo qadiyadda dadka madow ee la yidhaha Black Lives Matters, jiilka u badan ee banaanka u soo bixi ee u dagaalamaya waa iyaga. sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa waa the most sensitive generation, jiilka ugu tacaaduf ka badan, nugulaanshaha badan. hadday arkaan masalan qadiyadda Gaza oo kale marka laga hadlayo, dadka u badan diintay doonay ha lahaadaan ee Starbuckska qaadacaya, ee waxa weeye baraha bulshada ku dagaalamaya, ee sheergaraynaya caruurta Gaza lagu leynayo, waxa weeyaan waa Gen Z-ga weye. sidaa darteed sensitivity-goodaas iyo caadifadoodaas waa seef laba aflaa la yidhaahdaa, oo waxay dhanka kale la gelaysaa inay noqdaan jiilka ugu tacaadufka badan qoomoloodka wixii la midka.
qodobka kale wax ka sheegin doono waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waa jiilkii u badnaa taariikhda inta la og yahay ee uu ku badan yahay xanuunada dhimirka ku dhaca mental illness depressionku ilaa 46% inuu gaaro ayay waxay sheegaan daraasaadka sidaa darteed waa jiil aad ku arkayso dhammaan xanuunada dhimirka ku dhaco waxyaabaha aan sheegayna waalid dhammaantood waa waxyaabo jiilkan jenzigu ay la korayaan oo loo baahan yahay waalidku inuu aqoon u yeesho waana sababta janaalkan waalid legacy oon rabna waalidiintu inay follow gareeyaan subscribe dhahaan si aad muuqaaladan u heshaan sababta loo aasaasay waa in waalidka iyo caruurtooda la isku xiro waxaa la yidhaha jiilkan waa the most open minded liberal generation waa jiilka ugu badan ee maskaxdoodu ay xorta tahay xorriyadaas maskaxdii la sheegayo waalid waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan waxa la yidhahdo freedom of expression lama baqayaan say doonaan inay u hadlaan waxay rabaan ay dood ka keenaan haddii shaygaas maskaxdooda ay fahmi weydo way diidayaan dhibaatada ay keenaysa marka waxaa ka mid ah in aayadda qur-aanka marka loo sheego hadday fahmi waayaan ay dhahaan not for me ama I don't get it haddaad ku tiraahdo rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaas u seexan jira inay dhahaan it's not my style waxa keenaya waxa weeye maskaxdooda waxaa la yidhaha waa liberal minded waa maskax iska furan waa maskax aan xayndaab lahayn si faahfaahsan in qodobkaana uga hadli doonaa waalid qodobka ku xiga in sheegayna waxaa la yidhahdaa waa jiil ay ku badin waxaa la yidhaha entrepreneurshipka ama in ay iyagu markaas financial freedom ay helaan in ay iyagu markaas xagga dhaqaalaha security ay helaan oo markaa lacag ay ku noolaadaan oo meel dhigtaan ay helaan taas waxay ku dirtay baa la yidhi khaasatan qaybta wiilasha waxaa la yidhi waa jiilka u badan ee kolleejka iyo waxbarashada ka fogaanayo sidaa darteed jenziga marka si guud loo eego xagga waxbarashada waxaa ku badan females gabdhaha ku badan wiilasha markay noqoto waa looga badan yahay marka jenziga marka laga hadlayo waalid waxaa la yidhaahdaa qaybta ragga ama wiilasha waxay inta badan aadaan entrepreneurshipka ama waxyaabahan ganacsiga ah hadafkoodu waa inay lacag samaystaan waxay aaminsan yihiin baa layidhi in waxbarashadu ay tahay wada dheer oo lacag loo helo waxay aaminsan yihiin marka waxa la yidhaahdo straight smart quick fix waxyaaba maarata si degdega oo lacag loo heli karo waxaa ku badan bay marka yidhaahdaan in ay markaa waxbarashada ka lexdaan kolleejooyinka oo markaa ay helaan lacag ay helaan jiilkan waxaa kaloo lagu sheegaa waxaa la yidhaahdaa they are searching for identity waa jiil raadinaya astaan shakhsiyad identity ay meel isku taagaan adduunkan ay la korayaan waxaa ku badan falsafadahan ismka la yidhaahdo liberalism waxaa la yidhaahdo feminism postmodernism secularism iyo waxabaha la midka ah waa jiil la koraya iyada oo jinsigii lab iyo dhadiga ahaa magacyo badan loo bixiyey oo qofku markuu hadlo uu leeyahay hebel hebel baan ahay he uu leeyahay ama hebel hebel baan ahay she uu leeyahay walciyaadu billah yacni xilli runtii jinsigu uu lab iyo dhadig dhaafay oo wax ka badan oon ragna ahayn dumarna ahayn adduunka hadda magacyada iyadoo la isticmaalayo ayay la korayaan sidaa darteed waxay raadinayaan mar walba identity waxay isweydiinayaan who am I yaanahay arrintaasna waxay dhaawac weyn runtii u geysataa caqiidadooda waxaan ka hadlaynana waa caruurteena muslimiinta ah weeyaan sidaa darteed waalid dhaqamadan aan sheegayno dhan haddii kaa qarsoon yihiin waa dhaqamo khaas ku ah jiilkan hadda aan ka hadlayno ee jenziga la yidhaahdo oo aqlabiyadda bulshadeenna kuwa ka dambeeya ee yaryar ee 8 9 10 ilaa 11 gaaray alpha generation la yidhaah way kasii duwan yihiin waan ka hadli doonaa dhammaan dhaqamada aan sheegay sifooyinka aan sheegnay tilmaamaha aan sheegnay waxay raad ku yeelanayaan caqiidadooda islaamka waxay saameynayaan iimaankooda waxay dhaawici karaan identitygooda islaamnimo waana sababta aan rabno waalid in jiilkan aan waalidka ka haqabtiro xalqada xigta marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan dul fuulno tusaalayaal aad fahmi kartaan aan ka bixinno qaybta u horeysa ee la yidhaahdo inay yihiin the first post religious generation jiilkii u horreeyey ee diinta kasii durkaya maxaan ula jeednaa diinta kasii durkaya dhibaatooyin noocee ah ayay keeni karaan maxaa xal ah maxaa proof ah ama cadayna oo qur-aanku inoo sheegayaa in waxyaabahan oo kale ay ka soo bixi karaan bini aadamka dhammaan waxaan uga hadli doonaa xalqada xigta weli waxaan ku dhex jirnaa jenziga iyo waxay yihiin
iyo caruurteena waxyaabaha diintooda dhaawici kara. waalid muuqaaladan sabab hesho fadlan subscribe the channelkan Waalid Legacy ee adiga lagu sameeyay. waxaad la sheer garaysaa walaalaha muslimiinta ah si khayr kugu faafo adnaad ajir ka hesho. wixii su'aalaha aad qabto fadlan ku soo qor commentiga si xalaqooyinka soo socda aan uga jawaabno. mar labaad waa channelka Waalid Legacy oo idin leh الله عفوتنا حفظيه الله والدكنا حفظيه. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله. Waalid Legacy, it shines so bright, a rising star in the endless night. From roots so deep to skies so high, our name will echo, it will never die.